musharaxan golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ka sharaxan xisbiga mucaaradka OCID maalmihii u dambeeyay ku sugnaa galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta gaaray magaalada Roomo. Musharax ayaa markii uu gaaray deegaankaasi ayaa waxa si ballaaran u soo dhaweeyay taageerayaashiisa iyagoo ololaya caleemo qoyan iyo waliba astaanta musharaxa oo ah dawaco. Markii ay soo idlaatay soo dhaweyntii musharaxaano ayaa loo soo galbiyay xisbigiisa halkaas oo ay ka hadleen mas'uuliyiin kala duwan. waxaan kuugu hambalyeynaa inaan ku siino codka iyo codka iyo farta marta inaan farta ku siino oo aanu kuugu taageero sidaas ayaan kuugu taageersanaa. been ma sheegayno oo dadku waxay had iyo jeer yiraahdaan yani ama gorgortamay dhigaan ama waxay dhigaan maxay ahaydeen hadalay wax kordhishin la yahay dhigaan midna anagu iyadoo ay xagga shariicada islaamka marka loo dhabagalo ee xaaraanta arrinkaasu Soomaalidu wax ku maahmaahdaa oo ay sheegtaa ka sii deeriyaan nin la duugay iyo nin la doorto mid lama arko laakiin waxaan kuugu hambalyeyn doonaa inaan ku dooran doono farta ku siin doona adiga. haddii ay tahay odayada iyo haweenka dhalinyarada bulshada rayidka dadka deegaanka ku nool xanig iyo eeriyadeeda arrinka inay ka sii fakariyeen in badan aanu ka sii shaqaynaynay. sidoo kale jazakumullahu khayr haddaan ka hayo odayada beesha ee deegaanka waa maalintii koobaad ee doorasho anigu aan arrinka qabsado laakiin aan arrinka qabsado aan saxaafad layga duubo arrin kasta waan ku taageersan laakiin waa maalintii koobaad saxaafad layga duubo aniga. sidoo kale jazakumullahu khayr cid kasta cid baa maqan annaga nalama soo hadlan xildhibaanna lama soo hadal caaqilana lama soo hadal suldaanana lama soo hadal nin siyaasi oo dawladda hadaa lama keedin saad ku leeyahay ka socdaana lama soo hadal aan ahayn xildhibaan jaamac Axmed Ogle sidaas ayaan ku anjeeday. waxa weeye barbarkay ka baxdaa waa bikayna laqaan maalinta codka waxaynu isku ognahay inaynu caamadino xildhibaanka cajaayibka ee aqoon-yahanka jaamac Axmed Ogle maanta rumatay annagu xildhibaanka haddaanu reerka nahay aad baanu u soo qaadnay aad baanu wax isaga weydiinay waa nin ku fiican hawsha iyo xilka waa nin ku fiican reerku arrin aad buu galaamayay hawsha waxaanu jaamac Axmed Ogle inaanu codka yaga siino aad baanu galaamay oo aan beerahay loo runa annaguna waanu idinla diyaar baanu nahay inaanu maalinta aan maxaan kula doorashada dhacayso inaanu idinku ridno oo aanu idinku taageero oo idin siino si sharaf leh oo talkiina noqono. maanta waxa tihiin marti maxaan ku idhaahdaa cid wax aanu idin weydiisanayno aanu oranayno maxaan kula waxaasaanu u baahannahay ma jiraan waxa la yiri kor waayeel waa wada indho. dadka Roomo jooga waa dadka qura ee kaarka qaatay ee goobo badan kaga duwan in iyagu dadka codaynta ku magacaaban weeyaan ee wada codeeya. dadka Roomo jooga waxay kaga duwan yihiin qaridaha kale codkoodu waa dad aanu kala fogeyn oo isku meel joogo. insha Allah xildhibaankaanu maanta iyo ka golaha deegaanka intaba waanu codayn doonaa. ay hadaba jaamac gulahay sawiriga gadaal hamarin oo eeta gulahay sawiriga gadaal hamarin oo tirbirali ciniyo taliya raaga noqo cadawna kuma ihilo eeba kuma adilo ilaahay diintiyo cilmiga darax kaaga yeel sare lagu daaraciyay hoos lagu madayo ducadu waa iganiye dul walba waraay dhammaan population-ka reer Dhoomood aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa sida sharafta iyo qiimaha iyo karaamada leh aan loo soo dhaweyseen
waa idinka filaynay sidaa iyo si ka wanaagsanba waxaan u malaynayaa rabadaanteediina halkan aynu wada joognay maraan halkaan gurigan aan aniga halkaa deganayn insha allahu waa magaaladayadii marti kuma nihin sidaa codka noo siisayna waa idinka gubdoonnay insha allah isku soo wada duubo intii uu ku guda jiray xildhibaan safarkiisa ayaa waxa uu la kulmay magaalo kasta oo uu tago in alla ku shubo roobkiisa halkaas ay taageerayaashiisa ugu magac bixiyeen xildhibaan Rooble Maxamuud Abaadir Bulsha TV Elfweyn